waxay u badan tahay qaladka noocaana inaa hadda ka horgashay. I didn't eat food way qaldan tahay, qaladkeeda ma ogaan kartaa qaybta commentiga kusoo qor. waa mar kale iyo barnaamijkeeni 1 minute 1 English lesson, hal daqiiqo iyo hal cashir luqadda Ingiliishka. luqadda Ingiliishka markaa past tense ka hadlayso, wax lasoo dhaafa ay ka hadlayso, only auxiliary verbka ayaa past ka dhigaysaa. main verbka past kama dhigayso, sidiisa caadiga ayaad usoo qaadanaysaa. so marka maxaa lagu dhahay after didn't always use the base verb. marka didn't aad isticmaasho waa inaad base verbka isticmaasho. never use two pastes twice. laba paste hal mar hal jumla ha ku wada dhex isticmaalin. oo waxaa qalade marka inaad dhahdid I didn't eat, waa qalad weeyaan. didn't eat ma cunin, waa qalad weeyaan. marka maxaa saxe? waxaa saxe I didn't eat ayaa saxe. she didn't saw me, qalad weeyaan. maxaa saxe? she didn't see me, ima aysan arkin. he didn't played, waa qalad weeyaan. maxaa saxe? he didn't play, ma uusan ciyaarin. isku day inaad jumladani aad ka soo shaqeyso su-aashan. they didn't understood, ma sax ba mise waa qalad? qaybta commenti kusoo qor, isku dayna inaad faahfaahiso. haddaba haddii aad danaynayso inaad luqadda Ingiliishka aad sare u qaaddo, waxaan kugu casuumayaa wax ka baro academy oo kuu diyaarshay manhaj nidaamsan oo aad ku raaxaysan doontid. waa application aad app store ka soo dejisan karayso oo aad iska diiwaangelinayso adigoo si joogtana lagula xisaabtamayo. faahfaahinta oo dhammaystiran qaybta commentiga ayaa kugu diyaarnay. ka faa'iidayso. wasalaamu calaykum waraxmatullahi